dabcan waa qoratuurka Somali Week tartan sanad walba ka dhaca qurbaha si gaar ah Canada sanadkan qoratuurkiisu ka dhacayo magaalada Muqdisho waayahay raali ahaada qoratuurka aad gudageli doonaa qoratuurka dabcan waxa uu wici doonaa shakhsi bokiskaas ama koombadana wax ku jiro sida qoratuurka dunida ka dhaco kale magacu la bixi doonaa magaca bood kala duwan ku jira 1 2 3 midkee tahay midku ku aadi doona ayaa shakhsiga labaad asna uu doori doonaa saas ay iskugu dhici doonaan labadaas team kana hortiina ka muuqdaan tartan ka qayb qaadan doona qaybta koowaad waxa ku jiro Banaadir FC Dickson FC Khalid bin Walid FC Toronto Tigers FC labaadna waxa ku jiro Foxwell United Cardiff OIR FC Magu FC saddexaad waxa ku jiro Seattle Young Stars Edmonton FC Ohio United iyo Ohio Eagles teamkan waa team ka qayb qaadan doona sanadkan tartanka Somali Week ee kubadda cagta teamka protocol waxa rabaa inay diyaarsiin booliskii si shakhsi ugu horeeya u waco waa tahay warqada ugu horeysa waxaan rabnaa inuu noo qabto oo halkan aan uga wacno gudoomiye ku-xigeenka saddexaad ee xiriirka kubadda cagta Soomaaliya Master Yusuf mudane soo dhawow halkaas waxaa ka soo qabsataa hal warqad kadibna magaca soo qabsatid tiima diyaarsan oo isku aadka ka shaqeyn doono خالد بن وليد FC gudoomiyaha wuxuu qabtay Khalid bin Walid FC waa tahay ciduu ku aadi doono ama shakhsiga labaad ee loo wici doono isna warqada qabanaya aad u maasan yahay gudoomiyaha gudoomiye meega meesha idhig shakhsiga labaad ee wici doona qaadan doono wasiirkii hore ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha mudane xildhibaan Maxamed Barre Maxamuud kooxda markaan ku dhawaaqaan soo jeedinano waadisalaam marka hore bahda today guud ahaan waa ku faraxsanahay kooxda igu soo aaday waa koox ka turjumaysa ama ku dheelayso magaca meeshaan ku dhashay gobolka Banaadir FC nasiib wacanaan leeyahay kooxdaas waa tahay Banaadir FC Banaadir maxaa waa caadi uu xoog sheeganoo siin sacabkee martida kale bis ka dhaano marka waxaan rabaa shakhsiga saddexaad oo wacaayo noo qaban doono boolka inuu noqdo rasaar ku-xigeen hore wasiir xiriir kala duwan dalkan ka soo qabtay wasaaradda gaashaandhigga oo xilli adag uu soo hogaamiyey mudane wasiir Xuseen Carab Ciise
ديكسون اف سي. ديكسون اف سي miiska waa guux ma digsan taageeraystaya waxaan rabaa shakhsiga afraad oo qaban doono kooxda kale in uu noqdo mudane senator cabdixakiin aan oo qaban doono boolka afraad Toronto Tigres FC. وهاي أفرتي وغورسي خالد بن وليد اف سي بناندر اف سي ديكسون اف سي تورونتو تايجرز أي نقطة أفرت حكتا أيام فيرين دونا وحان وعي دونا xildhibaanad ka tirsan mudanayaasha nagu matali doono waa mudanayaasha nagu matalaya waqtigan East Africa xildhibaan Ilhaan Gasar oo noo qaban doonto boolka ugu horeeya bool 2 ah السلام عليكم دهانتين معو اف سي. وتهي معو هي قبطي وبود كلابات كجرتي اللي وين لهان waxaan rabaa shakhsiga kale oo noo qaban doono yahay mid kamid ah aasaasiyaashii today Mr. Gutale oo noo qaban doono boodka kale soo dhawo Mr. Gutale كارديف باي. السلام عليكم وين السلام دمانتي. واتا مستر Gutale كارديف اف سي ayuu u dooray oo nasiib ku siiyay mudane Cabdullaahi Nuur Cusmaan oo Salaam Hormuud Foundation qaybka ayaa noo qaban doono podcast kale soo dhawo mudane waa tahay haddii uusan joogin waxaa noo qaban doona boodkan mudane daayir cali kulmiye samafale Alpha Trust Foxwell United. Yes. Foxwell United. Mr. Dair wuxuu qabtay Foxwell FC waa Foxwell United aan yiraahdee aad u maasan yahay waxaan oo qaban doona boolka kale
وزير ku-xigeenka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha mudane xildhibaan dahab suuso maxamuud. بسم الله الرحمن الرحيم دمان قف كستا منصبك يكون فدي صورتي السلام عليكم waxaan soo dhaweynaa safarka noogu yimid iyo wafdiga ka yimid Canada waxaan leeyahay soo dhawaada Muqdisho waa gurigeeni koowaad soo dhawaada Artif Artif waa hagaag OIRFC ayay doortay wasiir dahabo waxaan marka rabaa shakhsiga kale aan u wacayo noo qaban doono inuu noqdo waa tahay mudane senator aadan cabdinaasir maxamed ayaan siin doonaa boodkan kale oo noo qaban doono Edmonton. waa tahay wuxuu dooray dabcan senatarka Edmonton waxaan rabaa inaan u waco Madino Santico oo ka mid ah reer Toronto Canada oo iyada noo qaban doonta boorka sacabka siiya maamada سيادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لمان حلبانة مسؤولين برشادة كلها سلام يا أنا أحمدين فارح سندك أنا ما أخان هذا ليه أنا أقصى عسومين قرطوركا لو قبنايا سومالي مقدشو صدن إسداد سنمان إمام ودن كان waxaa isoo casimay ururka today ugu sharfeen maadaama aan nahay ehelka isboortiga waxaan rabaa inaa aabbahay xasuus aan loo reebay jeclaysteen iguna duceeyo baabbahay aadaan u mahadsantihiin dhal sportis aaday u mahadsan tahay Madino Farax Sindiko aaday u mahadsan tahay markaan waxaan rabaa inaan sii boolka kale macalin farxad Soomaaliya ee san arkin dhanka kubadda cagta mudooyin farta ka saaray macalinkii kula guuleystay xulka 17 jirada qaranka Soomaaliya tartankii barigii bartamaha Afrika ee Sakaaba Nuur macalimo Nuur Amin السلام عليكم waxaan ugu faraxsanahay isku aadka today in Soomaaliya lagu qabtay because
waxaan farxad aad iyo aad ugu faraxsanahay fikirkan oo maaragtaa iskuadka lagu qabtay Soomaaliya waxaan leeyahay ilaahay mahad aad u mahadsantiin reer today wax kala sheega ma aqaan waa mahadsantiin insha Allah Ohio United. Yeah. ohio waxaan nuur aad u mahadsan yahay ani waxaa ka mid ahaa warbaahintii nasiibka u yeelatay in garoonka ay dhex gasho markuu xulka qaranka Soomaaliya koobka qaadanaysay macallin nuur amiin iyo tiimkii dhalinyarada ahaa maalin farxad ummadda Soomaaliyeed ee cajiib ahayd garoonka marka gool la dhaliyo waa dabaaldegaya sharciga oo saxaafaddana waxaa waaye in garoonka lagu dabaaldegin dhexdiisa oo dadka taageerayaasha bas ay dabaaldegaan laba jeer tiimkii protocol-ka yimaadeen waxay dhaheen mamnuuc waa dib kale banaanka lagu saaraa waxaa dhaa markii ugu horeysay Soomaaliya koob qaadaysa arkooya marka farxadaas dadkii la soo qaybsadaa qayb ka ahaa boodka ugu dambeeya ee isku aadkan dabcan waxaa leh asna macallin qiimo badan xulka qaranka oo 75 sano kadib markii ugu horeysay gaaray wareegga labaad ee isreebreebka koobka qaramada Afrika macallin qiimo badan nin ciyaarihii uu hayay 4 bareejo oo xataa goolal aan laga dhigin ciyaarihii ugu dambeeyay Soomaali banooni qurxan soo ciyaarsiin macallin Yuu Cali ama Yuusuf Cali Nuur السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan u malaynaa boodka kii ugu dambeeyay inuu yahay kadib wixii hadal gadaalan ka dhigan doona haddii ilaa yiraa laakiin waxaan fiirinaa tiimka ugu dambeeyay insha Allah Ohio Eagles anigoo fursaddan ka faa'iidaysanaya qof walbaba mansabka uu ku fadhiyaan ku salaamaya salaan kadib aniga waxaan ka mid ahay ururka Today Soomaaliya caawo dhan waxaa laga hadlayay tiimamka kale howlaha ay qabtaan laakiin waxaan ka mid ahay qaybta youthka akademiyada waxyaabaha ay qabanayso qodob muhiima laga tegay in carruurta Soomaaliyeed aan u samayno akademi oo muhiim u ah dhalinyarada maanta cilada ugu weyn ay haysato waxay tahay markii laga tago dagaalada iyo waxyaabahaas wax aad noo dhibaya jiro oo ah daraagiska inaan dhalinyarada ka wacyigelino daraagiska waxbarasho u samayno kadibna kubad cag inay dheelaan marka ururka Today waa arki doontiin iyagoo ka qayb qaadanaya gobolka Banaadir degmooyinkiisa kala duwan farxadayna ii taacaw inaan qorituurka tiimka ugu dambeeyayna u qaado qof walbana mamsabka uu ku fadhiyaan ku salaamaa legendiska wasiirada senatarada maamooyinka gabdhaha iyo saxaafadda oo dhan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Yuusuf Cali Nuur laacib xul qaran wadankeena waqti badan soo dheelay haddana diyaar waa inuu hogaamiyo ilaa iyo finalka koobka adduunka sanadaha soo socda insha Allah intaas waxaan ooga ekeyd iskuadka dabcan sida aragtaanba gruubyada ilaa 4 gruub waaye gruub A waxa ku jira Khalid bin Walid FC Makwa FC Edmonton FC gruub B waxa ku jira Banaadir FC Cardiff Bay iyo Seattle Stars gruub C waxa ku jira Dixon FC Foxwell United iyo Ohio United halka gruub D ay soo galeen Toronto Tigers OIR FC Ohio Eagles iskuadka saan oo noqday ciyaar xiiso badan oo farxada in la wada qaato